بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومقالة هرقيسة وتضبية الله تنكب بيش جون لوضا كونية تضبية طوانكا هدال كمانصور أيان وشوقنا شليبا وحن كداوني براها برشادة قارهان واتساب كان كواركي إذا عادهنا وان كم مغلي بويسكي يو BBC ده محمد مدني محمد عبد الله محمد فرماجو مدحوينها جمهورية الفدرالية الصومالية iyo gudoomiyaha aqalka odayaasha ee Muqdisho saaxiibka Cabdi Xaashi oo ka hadlayay munaasabadda 26 Juun markaan idaacada ka dhageysanay wax yar oo taaltaal ayaan maqlay laakiin tii xalay ayaa si wanaagsan waxaan u daawaday intii uu farmaajo warqadda ka akhriyay hogaamiyana looga roon inuu khudbadu dadweyne u jeedinayo warqad ka akhriyo saameynteedaaba iska yar farmaajo wuxuu soo qaaday 26 Juun iyo dadkii u soo halgamay magacyo ayuu halka ka tiriyay aan aad iyo aad uga xumahay inuu qaldo oo magacyo aan mudnayn in la qaldaa walibana nin madaxweyne sheeganaya oo qaldaanay ahayn wuxuu ku bilaabayaa afqalooc barkhad cas cali suule dabeedna wuxuu raacinayaa qaasin cabdilaahi qarshe cabdilaahi suldaan timacade waa ayaan daro inuu madaxweynuhu walibana khudbadda qoraalka ah uu soo qortay ugu soo diyaar garoobi waayo si habboon halkaa wuxuu ka akhriyay tuduc yar oo ka soo saaray Sareeyo Munusqaamo oo ku sheegay gabay cabdilaahi suldaan muu gabin maalintaas ee uu geeraaray madaxweynuhu waxa kale oo sheegay inuu gabayga cabdilaahi suldaan ka tiriyay magaalada Hargeysa 26 Juun 1960 cabdilaahi suldaanna meeshii fagaaraha ahayd ee ugu horeysay iyo maalintii ugu horeysay ee uu geeraarka tiriyaa waxay ahayd 25 Juun salaad casar iyadoo laga soo baxay iyadoo la joogo halkan uu masaajidka Ibraahim Dheere ka dhisay oo garoonka badeed ahaan jirtay wuxuu soo qaatay farmaajo wuxuu soo qaatay tuduc kamida tuducyadaas cabdilaahi suldaan baa geeraarka tiriyay calankaas Soomaalida ee 26 Juun Hargeysa laga taagay ayuu tiriyay samada kii wakaaya xidigaa mid la siiyay sayruuqii Afrikaado sagal maanta darooray oo siigadii naga maydhay Sareeyo Munusqaamo waan sidoo yahay eega saaxirkii kala guulnay kaana siib kana saar cabdilaahi intaasoo kaliya muu tirinin bishii August 1960 maalmihii ugu horeeyay labadeedii saddexdeedii afarteedii waxa wafdi ugu baxay goboladii waqooyiga Cabdirashiid Cali Sharmaarke naxariista janno Ilaahay ka waraabiyo dabadeedna Cabdirashiid markuu tagay kala baydh ayaa cabdilaahi suldaan ku kulmeen cabdilaahi suldaan geeraar la yiraahdo socdaal ayuu halka ka tiriyay isku darkii iyo Israaci wax midnimo dhacay ma jiraan barigaas Israaci iyo isku dar baa dhacay waxa laga joogaa markaa waxaan bil dhamayn cabdilaahi suldaan geeraar uu halka soo dhaweyn uu ka tiriyay midna waa dacwadeyda ayuu ku soo xidhayo dabuub aanu maqlaynay dareen baan ka qabnaayo dugsigii baarlamaanka iyo dekadii xamar baale berberadaadku ha qaado hadda duuma dadkeedu dooniyaanay ku waacan duqadii baarlamaanka ay danteena laba diiday labada kala daayo yaan loo daymo la'aan cabdilaahi suldaan baa tiriyay ninka uu leeyahay cali suul waa cali suuladun carbeed 1961 riwaayadiisii indhasarcaad ee ka hadlaysay xornimada NFD gobolkan la yiraahdo gobolka waqooyi bariga Kenya cabdilaahi suldaan hees ku jirtay maxamed axmed kuluc qaado ayaa waxay ahayd walaama calan jira oo caana baad ahaan oo lagu cawaansayay ama calal maryaa la cayna baad ahaan oo ciirsi weynayay aydiin iyo bisayl midun ku caana maal aydiin iyo bisayl midun ku caana maal waa odoroskii cali suule afmaalkii wadaniga ahaa ee Soomaalidii deganeyd gobolka waqooyi waxba uu lama harin calanka
wixii lagu muunayn lahaa ee milge iyo maamuus looga dhigi lahaa hees iyo gabay iyo geeraar iyo maansaba waa ay u dhameeyeen maanta maxamuud cabdilaahi maxamed mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo erey gabaya ama erey geeraara ama hees uu soo qaadan karo oo uu soo qaban karo oo loo tiriyey calankaas oo muxibiye kalgacal loogu tiriyey oo 1 Juulaay 1960 la tiriyey oo soo qaadan karaa ma jirto wixii ay ku heesaanba waa Soomaaliya toosa qolada calankeedu waa cayn baanboygu markuu madaxweynaha hormaraya wixii ay tumayaan waa heesii laga tiriyay Hargeysa waaye cusub abuurmay oo keenay inay Soomaaliland xaaladdan ku sugnaato gudoomiyaha aqalka odayaasha wuxuu aad baan uga xumay inuu calan kale ka taagan yahay Soomaaliland wax laga xumaado ma aha hadduu ka xumaado haddaanu ka xumaanba calankan uu taagnaanaya wax laga xumaada isagoo gudoomiyaha aqalka sare in marka ay labada gole isu yimaadaan uu jawaari noqdo gudoomiyaha labada aqal oo jawaari oo sharciyan u gudoomiyaha aqalka hoose isaguna iyo gudoomiyaha aqalka sare markaynu af Soomaaliga ba isla keen weyno annaguna sare aanu u naqaano idinkuna hoose sare u taqaaniin waa ayaan darro weeye waxa weeye waaya abuurmay waayahaasi wuxuu ka abuurmay wixii dadkan lagu sameeyay maalinta timacade lahaa danteena laba diiday ee cali suulataa qaadayay ee Allah u naxariistay cabdi iidaan faarax isagoo hudheel ka qadeynaya cadal laga daydaa maandeeq intuu arkay hal weyn oo candho weyn oo meel ku sawran cadal laga daydaa lagu sawiray calanka hoostiisa ariya maalay oo loo liso caawa garanaya timacada ku soo noqday ridha shaaba la iskaga daraa rubaca jiilaale ma riwaayad baa calanka soo ruuxna kuma naaxo tabashooyinkii halkaa ka bilaabmay waa qori caaradii gaadhay 1981 ilaa 1990 dagaal sukeeyaan ku jirnay waanu ku guuleysano ciidamadii cadowga waanu ka adkaano dalkayagii waanu gacanta ku dhignay maanta farmaajo hadii la weydiiyo wuxuu oranayaa dagaalada sukeey 1990 bilaabmay maanta cabdi xaashiye farmaajo hadii la weydiiyo waxay oranayaan Hargeysa ciidana ma duqeyn waxna kama dhicin waxay doonayaan xoogii dalka ee duqeeyay ee baabiyay inaanu anagoo Hargeysa joognaa anagoo Burco joognaa Laascaano joogno Boorama joogno u dabaaldegno manaynaan arag wax u dabaaldego wixii hooga iyo jabka baday hadalka waxaan kaga baxayaa farmaajo iyo bahdiisa waxaanu leenahay ha salaaxi naas guran ninkii gaagaxshaatay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh